kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa Villa Soomaaliya oo niyad jab u horseeday ra'iisul wasaare Rooble kadib markii Rooble uu ku guuldareystay in la qabto doorashada golaha shacabka. haddaba waa maxay tallaabada uu qaadayo madaxweyne Farmaajo oo uu ku doonayo inaan goordhow la qabanin doorashooyinka golaha shacabka? xog faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan ayaanu daawadayaal idin soo gudbin doonaa. ra'iisul wasaare Rooble oo tallaabo adag qaadayo kadib markii maamul goboleedyada ay ku guuldareysteen in doorashada golaha shacabka ay bilaabaan. sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed oo amar soo saaray kadib qaraxii shalayto ka dhacay magaalada Beledweyne. qodobada kale ee daawadayaal muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah dawladda Soomaaliya oo inta badan ku guuleysatay xadka dhanka badda ee shidaalka iyo kheyraadka kale ay ku jiraan. qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelino. aynu ku bilownay daawadayaal macluumaad soo baxaya ayaa sheegaya in kadib xadayntii maxkamadda caalamiga ee garsoorka ICJ ay ka samaysay xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya inta badan xirmooyinka la tuhunsan yahay in ay ku jiraan shidaalka iyo kheyraadka kale ay mareen dhinaca Soomaaliya ee xuduudda cusub. khabiir arrimaha badda oo dirsay xukunka maxkamadda oo dalbaday in magaciisa la qariyo arrimo xasaasi ah dartood ayaa VOA u sheegay in mid ka mid ah 7 xirmo ay martay dhinaca Kenya, 4 ay mareen dhinaca Soomaaliya, halka 2 kalena ay xuduudda dhex marayso labada dhinac u kala qaybsameen inkastoo dhulka ay ku fadhiyaan xirmooyinkaasi badankiisu uu marayo dhinaca Soomaaliya. khabiirkaasi ayaa waxa uu VOA u sheegay in xirmada dhinaca bari uga xigto oo astaanteedu ay tahay L26 ay martay dhinaca Kenya, halka qayb ka mid ah xirmooyinka L23 iyo L24 sidoo kale ay mareen dhinaca Kenya. xirmooyinka soo haray oo kala ah L5, L13, L21, L22 iyo inta badan xirmooyinka L23 iyo L24 ayaa maraya dhinaca Soomaaliya sida uu khabiirku sheegay. khabiirkaasi waxa uu xaqiijiyay in xirmada ay khuburadu baddu aaminsan yihiin inay kheyraadka badan tahay in ay martay dhinaca Soomaaliya. dawladda Kenya waxay sheegtay inaysan marnaba aqbalaynin go'aanka maxkamadda caalamiga ee ICJ. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaana lagu sheegay in Kenya ay doonayso in qaab nabadeed iyo wada xaajood lagu xalliyo arrintaasi iyada oo loo marayo midowga Afrika, waxaana Kenya ay ka soo horjoosatay xukunkii ka soo baxay maxkamadda ICJ. Kenya ayaa hore u sheegtay inaysan aqbali doonin go'aan kasta oo ka soo baxo maxkamaddaasi, iyada oo dhanka kale dawladda Kenya sheegtay inay ka doonayaan dawladda Soomaaliya in ay iska dhaafaan dhanka maxkamadda oo ay u soo joostaan sidii labada dawladoode ay heshiis uga heshiin lahaayeen si gaar ah arrinta muranka keentay ee badda. haddaba arrimahan ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Cumar oo xilligii wasiirka uu ahaa ay Soomaaliya sahminta shidaalka ka samaysay xeebaha Soomaaliya. wasiirka ayaa waxa uu isna baaritaan gaar ah oo uu sameeyay ku ogaaday in xirmooyinka badankoodu ay soo mareen dhinaca Soomaaliya isagoo oo joogo magaalada Muqdisho. ayuuna sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aankii ka soo baxay maxkamadda ICJ. war ka soo baxay taliska nabad sugidda Jubbaland galabta ayaa lagu faahfaahiyay howlgallo qorsheysan oo laga sameeyay xaafadaha magaaladaasi. qoraal la soo dhigay barta Facebook ee nabad sugidda Jubbaland ayaa lagu sheegay in la soo qabqabtay xubno ka mid ah al-shabaabka dilalka ka geysanayay gudaha magaalada Kismaayo. hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda Jubbaland ayaana howlgallo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ka waday maalmahan gudaha magaalada Kismaayo, kuwaasi oo lagu beegsanayo xubno ka mid ah kooxaha argagixisada ee ku dhuumaaleysanayo magaalada iyo nawaaxigeeda. howlgalladan ayaa ka socday welina ka socda dhammaan xaafadaha magaalada Kismaayo, kuwaasi oo lagu qabqabtay xubno ka mid ah dadka la tuhunsan yahay inay ku jiraan kooxaha argagixisada.
ciidamada amniga ayaa sheegay dhowaan bulshada in lala wadaagi doono warbixintooda oo dhammaystiran shakhsiyaadkaasi lasoo qabtay. dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Kismaayo ayaa waxaa lagu baaqay in ay indho u noqdaan ciidamada amniga ayna ku garab istaagaan howlgallada lagu ciribtirayo haraadiga ku dhex dhuumaaleysanayo magaalada. iyadoo aysan weli soo dhammaanin doorashadii xubnaha aqalka sare ayaa dhinaca kale waxa uu ra'iisul wasaare Roble isku dayayaa in uu furo doorashada xubnaha golaha shacabka maadaama lala kulmay dib u dhac aad u xoogan. Roble ayaa dareemaya in madaxweyne Farmaajo guushiisa iyo limintiisa uu gaaray maadaama Roble awoodii lagu wareejiyay ee dhanka doorashada ay u muuqato in uu ku fashilmay. Roble ayaa isagoo taasi ka duulayo waxa uu iminka doonayaa in uu madaxa biyaha kala baxo isagoo oo sidoo kale maamul goboleedyada ku cadaadinayo in doorashooyinka ay si degdeg ku qabtaan. dhowr jeer ayuu ra'iisul wasaare Roble weydiistay madaxda maamul goboleedyada inay soo dhameystiraan doorashada xubnaha aqalka sare si loo bilaabo doorashada aqalka hoose, laakiin cidna kama soo jawaabin baaqiisa. waxaa maalmihii lasoo dhaafay sii xoogeysanayay wararka la xiriiro in madaxda maamul goboleedyada ay wada shaqayntii dhanka ra'iisul wasaare Roble ka gaabiyeen oo danahooda kale ay ku mashquuleen isla markaana ay meel iska dhigeen arrimaha doorashada. Saciid Deni oo hogaaminayay madaxda maamul goboleedyada marka la eego karti ahaan ayaa dhankiisa diiradda saaray doorashooyinka kale ee dhanka Puntland halka uu dhinac iska dhigay doorashada dowladda federaalka. Roble waxa uu hadda u muuqdaa in uu raadiyay wado kale oo uu kaga guuleysan karo madaxda maamul goboleedyada uuna ku furi karo cutubka doorashada golaha shacabka. xilli xalayto hadal uu ka jeedinayay kulan lagu mahadcelinayay xubnihii dowladda ku matalayay kulankii maxkamadda adduunka ee ICJ ayaa Roble waxa uu ballan qaaday in uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed uu ka ballan qaaday in doorashada golaha shacabka ay u diyaar garoobeen ee dhanka xubnaha gobolada waqooyi. reer waqooyiga ayaa lagu amaanay sida ay u soo afjareen khilaafkii muddo u dhaxeeyay una qabteen doorashadii aqalka sare iyadoo oo ayna hal kursi hakinin 2 maalin oo isku xigtana ay ku soo gabagabeeyeen 11 kuraasi ay ku leeyihiin doorashooyinka aqalka sare. Roble awoodda doorashada ee qura ee ilaa iyo hadda uu haysto ama cid uu maamulo iyo si toosa uu ugu guuleysan karana ay tahay waa doorashada reer waqooyiga. doorashada aqalka hoose ee maamul goboleedyada uguma furno ra'iisul wasaare Roble wax aan baaq ahayn, iyaguna u muuqdaan kuwo diyaar u ah baaqa ra'iisul wasaaraha. haddii ay dhaqan noqoto sida uu sheegayo Roble oo isbuuca dambe la bilaabo doorashada aqalka hoose ee reer waqooyiga, waxaa halkaasi maamul goboleedyada qaar uga dhiman doonaa qorshihii ay ku doonayeen in wax laga bedelo heshiiskii 17 Sebtembar gaar ahaan qodobka deegaan doorashada, waxaana ay ka dhigan tahay in doorasho toos ah ay bilaaban doonto. inkastoo maamul goboleedyada aysan micno weyn u sameynin doorashada xubnaha reer waqooyiga ee Muqdisho taalo, haddana haddii lagu guuleysto in la bilaabo waa astaan muujinayso in la galay jawi doorasho oo dib loo laaban karin balse la daahin karo. ra'iisul wasaare Roble waxa uu wajahayaa cadaadis caalami ah, sidoo kalena waxa cadaadis kan la mid ah u wajahaya madaxda maamul goboleedyada, waxaana madaxweyne Farmaajo uu u hanqaltaagayaa in mar kale uu helo awoodii maamulka doorashada haddii Roble awoodii uu isaga ku fashilmo oo madaxda maamul goboleedyada ay ku qancin waayaan in doorashada ay bilaabaan. Farmaajo ayaa rajeynaya in isbuucyada soo aadan ra'iisul wasaare Roble uu si rasmi ah u shaaciyo inuu ku guul dareystay awoodii dhanka doorashada ee loo dhiibay iyo amnigeeda, waxaana taasi ay keeni doontaa in madaxweyne Farmaajo mar kale awooddaasi ay gacanta u soo gasho oo uu isaga gacanta ku dhigo maamulka dhanka doorashada golaha shacabka xilli doorashooyinka aqalka sare intooda badan la soo gabagabeeyay. qaybihii dambe ee warkeena ayaanu soo gaarnay daawadayaal. madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Mudane Yuusuf Axmed Xagar ayaa kormeer kadib qoraal kooban oo uu soo galiyay bartiisa gaarka ah ee Twitterka ku yiri waxaan maanta booqday saldhigga booliiska degmada Beledweyne ee uu shalayto qaraxa ka dhacay, waxaana faray buu yiri ciidanka booliiska ee ka howlgalo magaalada Beledweyne inay sugaan amniga magaalada kana hortagaan khataraha ay cadowga soo maleegayaan. cadowga aan u midowno walaalayaal, si wada jir ahna aan ula dagaalano dhammaan dadkii shalay nooga geeriyooday
qaraxa allaha u naxariisto dadka ku dhaawacmayna allaha boogadhayo ayuu yiri Dabageed. qaraxii shalayto ka dhacay Beledweyne waxaa ku dhintay duqii deegaanka Feerfeer Khaliif Rooble iyadoo taliyaha booliiska Beledweynena uu ku dhaawacmay isla qaraxaasi. weerarkaasi ayaana waxaa sheegatay inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doono muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.